wadadaasoo ka bilaabatay niman jaadla ah oo heer Cabud Waaq oo laba nin aba waxay ku murmeen meesha la yiraahdo Cabud Waaq jaadkan ka joojin wadada aad soo maraysaan iyo igama joojin kartid midkii jaadka lahaa mooyaane kii kale intuu tagay wadadii nin miskiin oo iska taagan xabad ku dhuftay oo dilay laba habeen kadib haddana nin maaragtay kala loo dilay wada maaragtay wada jidgooyo maaragtay colaad ka bilaabatay oo sidaa fooshan ku bilaabatay horta markii hore ahayd in badan buu dagaal dhacay oo dooxata dhacday oo maaragtay ay soo dhibaatadaas ay socotay markii u dambeysay dawladda maaragtay soo fargelisay bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan idin ahaantiin badda wadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu ku eegi doono colaad maalmihii la soo dhaafayba ka taagnayd deegaanada Qoraxay iyo Doollo ee dawlad deegaanka Soomaalida taasi oo u dhaxaysay dad Soomaaliyeed oo halkaasi wada dega iyadoo muddooyinkii ugu dambeysayna colaadaasi loo maaran waayay isla markaasina wada hadallo dhowr ah oo la doonayay in xal loogu raadiyo ay fashilmeen haddaba waxaa cusub in haatan ay dagaalo culusi dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ka socdaan gobolkaasi Qoraxay gaar ahaan degmada Shilaabo deegaanka Caleen deegaan hoostaga halkaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen xilligan Ramadaanka si nasiib darra haddaba waxaa khadka telefoonka ku jira aqoon-yahan activist ah oo ku sugan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doollo magaalada Wardheer Cabdirasaaq Sarhaye oo xogaal u ah dhacdooyinkani iyo sida xaaladaha ay soo mareen waxaana wax ka weydiin doonaa bal xaaladaha guud ee dhacdooyinkaasi iyo colaadaasi muddada soo jiitamaysay oo la sheegay haatan in ciidamada amniga ee dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan loo yaqaan Liu Booliisku ay ku biireen oo ay aagaasi haatan ka howlgalayaan Cabdirasaaq Sarhaye waad maqlaysaa Soomaa si wanaagsan ugu horeyn soo dhaw waa mahadsantahay dhaw bal haddii aynu ku horeyno colaad baa muddo dheer ka soo jiitamaysay aagan gobolada Qoraxay iyo Doollo oo xuduud la leh Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya colaadani muddo soo laalaabatay dad badanna way ku dhinteen bal haddii aynu taariikhda dib u yar celino bilooyinkii ugu dambeeyay iyo qaabkii ay u dhaceen iyo meelaha ay ka dhaceen aad baad u mahadsantahay colaadani ama dhibaatadani waa runtaa way soo noqnoqotay intii isbedelku dhacay tiro ka 3 jeer iyo dagaal dhex maray ciidamada deegaanka iyo dad maaragtay ka soo duulay ama ka soo gudbay xagga xuduudda xagga shashada Soomaaliya laba arrimood oo meesha isbarbar socda colaad qabiil way jirtaa oo qabaa'ilka Soomaaliyeed wad garanaysaa ceel iyo carshan iyo dhul iyo wax badan bay isku qabsadaan oo way islaayaan taas waa gooni laakiin midan hadda dhacdadan hadda maanta socota waxa weeye ciidanka deegaanka iyo waxay u dhaxaysaa iyo niman ka yimid xadka dhinaca ka soo gudbay sida maamulka Galmudug ba sheegeen sida kale hadan dib u noqdo neef ku celiye iyo xodol dheere iyo oo Doollo ka tirsan ilaa Meer Khaliifo dagaal beeleed yaa runtii ka dhici jiray waayada la soo dhaafay oo dhan dagaalka inta badan waxa wada oo maaragtay lagu eedeeyaa inay wadaan dad maaragtay dalka Soomaaliya dawladda kama jirto oo xad kuma xakameysna dad intay soo dhuntaan oo Cabud Waaq iyo Balanbalay meel ka shaysa ka yimaadaan bay dadkan aagan dad ku layni meeshii bay ku noqonay marka colaadan waa colaad guun oo soo noqnoqotay xagga Qoraxay iyadana sidaas si lamida mar walba way soo noqonaysaa way ka dhacdaa waad ogtahay marka dhibaatadani asal ahaan waxay salka ku haysaa aana qabiil iyo wax la mid iyo dhul laakiin sida iska cad la fahamsan yahay waxa weeye waa dad doonaya in deegaanka Soomaalidu uusan degin oo intay xadka ka soo talaabaan oo dad laayaan shacab ah haddana ka talaabaya marar kala duwan hataa ciidan ama askar xadka ilaalinaysa bay laayeen oo ay bartooda ku laabteen marka
intii isbedel ku jiray way soo noqonaysaa dhibaatadan marar fara badan dowlad deegaanka iyo macalgeel mudug waxa la isku dayay in xal laga gaaro laakiin xal rasmi ah wali lama hayo way bal dadkan xuduudda ka soo talaabaya ee hubeysan ee weerarka ku soo qaadaya goboladan Doolo iyo Qoraxayba haddaan Doolo ku horeyno oo sawir ka siiso daawadayaasheena meelaha ay weerarka ku soo qaadeen iyo khasaarihii ay geysteen haddii aynu dib ugu yaro noqono gaar ahaan Doolo horta sidaad ogtahay dadka deegaanka ku nool dhinacan soo ka degan waa dadkii inta badan dhibaatadu ay ku dhacday sanadihii la soo dhaafay dadkani ma hubeysna oo dad hub haysta ma aha waa dad dawladda iyo maarta iyo awaamirta dawladda uun u hoggaansama ha yeeshee xagga shasha dadka degan waa dad hubeysan xaggaana dawladda kama jirto dadkan marka waxa loogu talagalay oo nidaamkuba uu yahay dadkan inay dawladdu ilaaliso dawladuna waxay isku daydaa inay xadka maaragtay ay xidho ilaaliso laakiin mar walba dad ba intay soo gudbaan oo xagga ka soo gudbaan bay dad shacab laayaan meer khaliifay ku laayeen dhulwaharaf bay ku laayeen maxaan ku dhahaa neefka celiya ku laayeen mar walba way dhacaysay marka taasu waxay sababtay in maaragtay khasaaro fara badan uu yimaado hadda bil wax ka yar ayay ahayd wixii dagaalka maaragtay dadka faraha badan uu ku dhintay ee labada dhinacba aagan neefka celiye marka way jirtaa waxa weeye waa colaad uu maaragtay asal ahaan sida ku salaysan laakiin dadka wada mar walba bilaaba waa dadkaas dhinaca shasha ka soo gudba way bal hadii aynu aadno caleen dhacdo xanuun badan oo aad u foolxumo badan xilli rabadaana oo dadka islaamku ay sooman yihiin yaa ka dhacday waxa la sheegay in ugu yaraan 5 qof xilli ay suxuuranayeen maleeshiyaad ka soo talaabay dhanka xuduudu ay halkaasi ku laayeen qaarkood baan qaan gaarin dadkaasi sida dad ila deegaanku ay noo xaqiijiyeen bal dhacdadaasi iyo siday u dhacday hadii aad wax yar faahfaahin ay naga siiso waa mahadsantahay dhacdadaasi waxay u dhacday waxaa jirtay in aagaas maaragtay caleen dushiisa ay dagaalo ka dhaceen xilli hore oo maaragtay dad shacab sidaas oo kale lagu laayay dhacdadaasoo ka bilaabatay niman jaadla ah oo heer cabud waaqa oo 2 nin aba waxay ku murmeen meesha la yiraahdo cabud waaq jaadkan ka joojin wadada aad soo maraysaan iyo igama joojin kartid midkii jaadka lahaa mooyaane kii kale intuu tagay wadadii nin miskiin oo iska taagan xabad ku dhuftay oo dilay laba habeen kadib haddana nin maaragtay kala loo dilay wada maaragtay wada jidgooyo maaragtay colaad ka bilaabatay oo sidaa fooshan ku bilaabatay horta markii hore ahayd in badan buu dagaal dhacay oo dooxata dhacday oo maaragtay ay soo dhibaatadaas ay socotay markii u dambeysay dawladda maaragtay soo fargelisay xal nabadgeliyo aba laga gaaray labadii beelood odayaashoodii baa la isu keenay waxaa jirtay jijiga la isugu geeyay xoogaa sansaan maaragtay nabadeed baa socotay intaas markay dhacday ugaaskii beesha sade yaa wuxuu yimid deegaanka jijigu tagay waa la soo kaxeeyay isaga iyo 25 wafdi oo la socota oo maaragtay beeshiisa ayaa shilaaba yimid iyaga oo sheeganaya ama dadka ku yiri ama qorshahoodu yahay inay maaragtay ay sameeyaan gogol nabadeed oo xal la gaaro oo magtii la kala qaato oo xaajadii loo fadhiyo ayay niman ka yimid sida ay sheegeen maamulka galmudug laftooda ay sheegeen niman balanballe iyo cabud waaqi aaga ka yimid oo maleeshiyana oo waliba la sheegay in ciidanka Soomaaliya inay ka mid yihiin ka tirsan yihiin baa soo duulay 5 qof oo hal qoys oo maaragtay suxuuran haya bay 5tiiba dileen oday maaragtay waayeel oo 90 jira ciyaal aan maaragtay qaan gaarin baa kamid ahaa dhacda runtii fool xun bay noqotay oo aad looga argagaxo lala yaabo inta kadib nimankii way laabteen aagoodii bay ku laabteen ciidankii baa raad qaaday markii ciidankii deegaanka raad qaaday bay ciidanka gaarka ee xadka ilaaliya raad qaaday adigu way is heleen kuwa dad kale oo maartay hubeysan oo maleeshiyaan oo aaga iyagana joogay baa ku soo biiray dagaal buu wixii isu rogay dagaal baa maartay adag baa aaga ka dhacay khasaaro uu jira
oo maartay dagaal haduu dhac khasaaro u iman haddana waxa weeye waxay u maqaalayeen xaaladdu iska degan tahay oo iyagii iyo wixii maartay dadkii ciidanka ay xireen haddana wax maartay sida u buuran oo laga sii warwaro u jirin way markii ay dhacdadaas u dhacday ciidamada deegaanka Soomaalida liyu booliska iyo gaar ahaan waaxdan amniga u qaabilsan deegaanka Soomaalida war saxaafadeed bay soo saareen ay ku sheegayaan inay baacsanayaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay dhanka kalena ila deegaanka ku sugan iyaguna waxay soo tabinayaan walow aanan xaqiijin karin in dad fara badan ay la laayay maalinimadii shalay ahayd oo dagaalada ka socda dhanka xuduudda ay ku dhinteen iyaga faahfaahin maxaa ka haysa horta maleeshiyaankan inay xadka ka soo gudbeen waxa xaqiijiyay maamulka galmudug laba wasiir oo hadashayba iyo xaqiijisay oo waliba sheegay in raalli ka yihiin in maleeshiyaanka dhinacoodana ay kala dagaalamayaan xaggan sokana waxa weeye ay taageerayaan operationka ama ay maartay in xadka iyo amniga la sugo waxa jirta marka dad shacab la laayada waan maqlayaa anigu waa soomanahay oo in hadda dad shacab meesha ku dhinteen in kala ma xaqiijin karo laakiin sida guud nin hubaysan oo ciidan la dagaalamay de shacab ma ahaba shacab waxa la dhahaa qofka wadankiisa jooga ciidankiisa hoos jooga amniga maaragtay wadanka ku jooga la dhahaa cid hubaysan oo qori wadata oo dagaalamaysa shacab ma aha hadii uusan xataa diiwaan gashaneen oo ciidan la yaqaan uu ka diiwaan gashaneen qofkaas waxa weeye qof qori wata deegaanka lagama ogolo awaamir bal soo rogay inaan wax qori wata deegaanka uu si joogi karin oo maaragtay dawladdu awaamir baa laga soo saaray marka aniga sida aan aaminsanahay dadka aaga ku dhintay waa dadkii maleeshiyaanka ee dagaalamayay ee qaybno ay laysay dadkii maartay shacabka ahaa inta kalena iyagii taageerayay oo markii iyaga raad qaaday ay ula galeen waxaana weeye balanbala xarun ah oo ka soo duulaan markaas ay maartay halkaas ka soo duulaan hatta waxa jirtay dad si weyn u hubaysan weeyaan oo technique xataa haystaan oo waa dad u diyaar u mar walba inay amniga maartay ay khalkhal geliyaan waa markii saddexaad dad ka yimid xadka oo soo duulay ay ciidanka ammaanka ee deegaanka isfara saaraan shacabka ay laayeen intii isbedelku uu dhacay isaga lama soo koobi karo runtii marka dawladuna si gaar ah oo iyaga loo bartilmaamsanaya ma aha laakiin cid kasta qoladan soke iyo iyagaba cid qori wadato oo dhanba awaaj waxa lagu bixiyay inaan laba arki karin oo talaabo laga qaadayo marka wayna mudan yihiin badisaan anigu isleeyahay in talaabo laga qaado dad shacaba oo ilaahay dartii meel isaga joogo oo sooman ama suxuuranaya dadka intay ka soo duuleen meesha laayay in maaragtay loo meesha kuma jirtay waa in cadaaladda la hor keenaa weeyaan ciidamo fara badan bay deegaanku sheegeen in la geeyo aaga xuduudda si ay amniga dadka u sugaan dagaalada adagna waa laga soo sheegayaa ilaa iyo haatan ma jiraan inta xoogagaal aad ka tahay maleeshiyaadkii duulimaadka ahayd ee dadka laayay wax gacanta lagu soo dhigay oo ay ciidanka dowladda deegaanka Soomaalidu ay soo bandhigeen de horta wuu socdaa howlgalkii waxba maartay ciidanku ma soo bandhigin laakiin dagaalaad dhacay oo iyaga lagu raad joogo qaar fara badan way farxadeen oo xadka inay ka baxeen baa la filayaa inkastoo haddana abaabul uu ka jiro xaggaas oo xadku waxa weeye cabad waqti iyo xadka deegaanka Soomaaliya waa wax isu dhow waad garanaysaa marka cabad waaq jeed balanballe aagaas oo dhan iyo maartay kolba ka soo gurmanayaan ciidankana waa sida la xaqiijiyay waxa weeye waa ciidamo oo nin colonel la dhaho oo maartay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan dawladda Soomaaliya ka tirsan oo aaga ku ururinay waayadan ujeedadu marka isaw kala la garan maayo ciidamadaas oo si adagna u hubaysan baa intii dharkii laga bedelay bay soo duulhayaan waad garanaysaa sida tactica iyo ciidanka deegaanka ee aad artay tababarka aad artay qabananka la dagaalamaya u barbar dhigaya waad garanaysaa dad shacab inay ahayn dhacdo maalin maartay dhowr bilood ka hor waxay sameeyeen intay gaari yar soo qaateen oo xadka ka soo talaabeen bay 4 askari oo meel joogtay bay dileen حتى واحد طلابة ولا قاعد ما شرع عيدا ما ذو حالة يسحكمي يسكدا يلا يجري ده وحوي
waa meeshani waxaa ka soo socda maaragtay amni darro dad amniga deegaanka ku talagalay inay khalkhal geliyaan oo aan isleeyahay galmudugta lafteedana way ku xumaynayaan baa jira dee Soomaaliya dawlad hadda shaqayso oo macnalaha awood kama jirta waxaa ka jira laakiin interest oo dadba waxa laga yaabaa colaada iyo dhibaatada deegaanka ka jirta iyo amni darrada inay ugu dararayso iyada dantoodaba ku jiraan marka inta aan hadda anigu ogahay xaaladdu way degan tahay maanta wax dagaalo uma dhicin laakiin xadkuna waa xiran yahay ciidamo fara badan oo deegaanku leeyahayna waa la geeyay waxaana ciidamada awaamiir iyo amar lagu siiyay cidii la arko ee qori wadata in qoriga laga dhigo hadday dagaalantana lala dagaalamo aan loo joojinin dadkaas shacabku marka dadka deegaanka degan ee shacabka cid wax ma yeelayso ciidana looma jeedo laakiin arxalnaawayaasha ama dadka dambiilayaasha ee ku soo gabanaya iyo iyaga in la kala saaro waa muhiim xadkan in la cadku uu xiran waaba la xiray already way ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Cabdirasaaqow dad social media wax ku qoreeyay ayaa sheegay in ciidamada Ethiopian ay qayb ka yihiin hawlgalkan marka intaad xoogaal ka tahay ma wax ciidan Ethiopia oo federaal iyo aagaasi ku sugan ma ciidan federaal oo deegaanka deema joogay soo yagii furimaha aaday ma xagga inoo wada dhaaf wax ciidan oo aan ciidanka amniga ee deegaanka ahayn ma jiro oo deegaanka kuma sugnaaba way waata aad baa u mahadsan tahay Cabdirasaaq Sarhaye oo ku sugan magaalada Wardheer ee gobolka dowladda deegaanka Soomaalida oo si toos ah aynu khadka telefoonka ugu wareysanayna ayuu kaasi ahaa Cabdirasaaq aad baad markale u mahadsan tahay daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabayno wareysigan kooban oo aynu uga hadlaynay xaaladaasi colaadeed ee ka taagan gobolada Qorraxay iyo Doollo inta aynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waa guulada Lifle oo idinkaga sii tagaya salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh